soo dhawaada saaxiibayaal wiilkiina sirta films bal suuraysa hadii hal afufid oo CD ay soo dedejiso geeridaada aadna adoon filin uu cato malkumoodkaaga sheekadeenu waxay ku bilaabanaysaa kulan kubadda kolayga oo ka socday dugsi sare ciyaartaas waxaa ka qayb qaadanayay wiil lagu magacaabo Mason kooxdiisa ayaa laga badinayay waxaana ciyaarta ka harsanaa 44 ilbirqsi oo qura tababaraha ayaa ku yiri wiil lagu yiraahdo Dean inuu kubadda soo dafo oo dhaqso u siiyo Mason maadaama uu ahaa laacibka ugu fiican ee kooxda kubadda tuura wiilashii oo dhan ayaa qorshahaas raacay wax yar kadibna Mason wuxuu dhaliyay 2 dhibcood laakiin mar qura ay indhihiisu qabteen nin ololaya oo dhex taagan dad badan ciyaartii ayaa sii socotay ilbirqsiyadii ugu dambeeyay ayuuna Mason kubaddii tuuray laakiin si lama filaan ninkii ololayay ayaa mar kale soo hor istaagay wuxuuna bilaabay inuu gacantiisa madow u soo taago isla waqtigaas kubaddii ayaa goosha gashay kooxdiisuna ciyaartii way badisay barxad darteed ayaa Mason kooxdiisu ku soo oroday laakiin Mason oo cabsanaya ayaa dhaqso ugu orday qolka dharka lagu bedesho markii uu furiyay armaajadiisa wuxuu dareemay in jirkiisu isbedelay oo dhididkiisu istaagay alaabtii oo dhan ayuu dibadda u soo tuuray ugu dambeyntii wuxuu gacanta ku dhigay shay la yaab leh isla markaas cod ayaa si hoose magaciisa ugu yeedhay cabsi darteed ayuu Mason bilaabay inuu raadiyo birta miisaanka isla waqtigaas ninkii ololayay ayaa isna meesha yimid hadda Mason wuxuu bilaabay inuu ka baryo naxariis laakiin markii uu istaagi waayay ayuu burburiyay shaygii la yaabka lahaa kadib indhihiisu waxay qabteen dhanka albaabka wuxuuna arkay saaxiibadiisa oo gudaha soo gelaya neef weyn ayaana ka soo fuqday mar dambe markii uu qubaysanayay Mason wuxuu maqlay cod la yaab leh markii uu hoos eegay wuxuu arkay wax dambasu kadib markii uu gadaal u jeestayna ninkii ololayay ayaa qoorta ka qabtay wuxuuna gacantiisa geliyay doontiisa taasoo keentay in jirka Mason uu isna gubto markii saaxiibadiisa ay maqleen qayladiisa dhammaantood waxay u ordeen dhanka musqusha waxayna arkeen Mason oo gubanaya 6 bilood kadib waxaan arkaynaa gabadh lagu magacaabo Chris oo soo gurtay inay la noolaatay naadirkeed waxay fadhiday dhinaca daaqada iyadoo sawir gacmeed sameynaysa laakiin si lama filaan ay mala awaal u gashay waxayna dhulka u soo eegtay si aada sidii inay fikrado madow oo mugdi ay maskaxdeeda gelayaan laakiin si lama filaan ay naadirkeed Ray ayaa ka soo jeediyay wuxuuna ku yiri waxaan ka caawinayaa inaad alaabtaada habayso kadib markii ay gaadheen iskuulka Ray wuxuu bilaabay inuu Chris tuso iskuulka markaas ay indhihiisu qabteen gabadh lagu magacaabo Ellie Chris waxaa la siiyay armaajo ay dusheeda ku qoran tahay horse markaas ayuu Ray u sheegay intani ay ahaan jirtay naanaysti Mason kadib Dean iyo saaxiibadiisa ayaa ku soo ururay Chris waxay ku yiraahdeen xushmad ahaan ay isticmaalna armaajada Mason laakiin gabadh lagu magacaabo Grace ayaa soo dhex gashay waxayna tiri iskuulkan aad buu qadiimi u yahay marka la eego dadka armaajooyinka halkan ku lahaa dhammaantood way dhinteen arrintan macna ma samaynaysaa markii uu arkay Grace Ray wuxuu isku dayay inuu shukaansado laakiin miskiinku uu ku guuldaraystay isla waqtigaas Dean wuxuu ogaaday in Grace ay ku cusub tahay iskuulka wuxuuna bilaabay inuu yiraahdo waxaan maqlay xana inaad ka soo baxday xarunta dhaqan celiska daroogada aabahana waa dishay Soomaha markaas ayaa la isaga joojisay oo tiri warkaas macna darada jooji laakiin Dean wali uu ku jeesjeesay Chris cadho darteed Chris ayaa leed xooggan kaga dhufatay xiniyaha isla markaas Kevin ayaa yimid halkaas wuxuuna isagoo xanaaqsan ka caydhiyay Chris Dean Grace iyo Ray iskuulka dhowr maalmood kadib markii dadkii oo dhan tageen alle waxay isku dayday inay saaxiib la noqoto Chris laakiin Chris waxay u sheegtay inaanay u baahnayn caawimadeeda markii alle ay tagtay kadib Chris ayaa furtay armaajadii waxayna ka heshay waxyaabo badan oo Mason lahaa oo ay ku jiraan wixii la yaabka lahaa ee uu burburiyay kadib markii ay maqashay cod goonaasaya Chris waxay go'aansatay inay furto waxaana gudaheeda ka soo baxay CD Chris waxay rabtay inay afufto laakiin gambalilkii iskuulka ayaa dhacay waxayna u baxday fasalkeeda duhurkii Chris waxay fasalka timid iyadoo daahsan markii ay shandadeeda miiska saartay firimbigii ayaa shandada ka soo dhacay Dean wuxuu qaatay in laga yaabo inay tahay tuumbada sigaarka lagu cabo wuxuuna u sheegay Kevin kadib Kevin ayaa si taxaddar leh u eegay firimbigii wuxuuna yiri waxay u eg tahay qalabka muusiga nooc ka mid ah wuxuuna isku dayay inuu ogaado waxa ay tahay isagoo eegaya xarfaha ku qoran salka markii uu Kevin akhriyay xarfahaas qariibka Grace ayaa bilowday inay internetka ka baadho taasoo muujisay in macnaheedu tahay in la soo celiyo dadkii dhintay Kevin wuxuu yiri aniga ayaa firimbiga hayn doona wuxuu sidoo kale u sheegay in Chris ay ka dhaxashay armaajadii iskuulka wuxuu ku yiri ardadii oo dhan inay dhaqso u baxaan sidoo kalena wuxuu siiyay shaqo guri markii ay ardadii baxeen Kevin wuxuu internetka ka baadhay firimbigii wuxuuna ogaaday in firimbigani uu aad qaali u yahay sidaa darteed wuxuu qorshaystay inuu iibiyo firimbiga laakiin markaas ayuu maqlay cod magaciisa ku goonaasaya taasoo ku khasabtay inuu firimbiga afuufo Kevin sida ayuu sameeyay markiibana daaqada ayaa dildilaacday markii uu taas arkay aad buu u argagaxay wuxuuna dib u dhigay firimbigii laakiin ka hor inta uusan fasalka ka bixin wuxuu internetka ku dhameeyay heshiiskii uu ku iibinayay firimbiga dhanka kale banaanka Grace ayaa qof kasta ku tiri dib ayaan isku arki doonaa kadib markii ay kala tageen Ray wuxuu ku yiri Chris wixii aabaha ku dhacay khaladkaaga Mason ahayn laakiin Chris haba yaraatay Mason doonay inay ka hadasho arrintaas waqtigaas Ray wuxuu xasuustay inuu xilmaamay wuxuuna dhaqso ugu cararay dhanka fasalka halkaas wuxuu uga yimid laabtoonkii Kevin oo furan wuxuuna arkay isagoo website ka eegay qiimaha firimbiga isla markiiba fikrad ayaa ku dhalatay dhanka kale Chris waxay u timid Noah kaasoo ka shaqeynaya faafinta diintiisa Noah wuxuu Chris ku casuumay kaniisadda wuxuuna sidoo kale isku dayay inuu darooga ka iibiyo markii ay diiday wuxuu siiyay xitaa
qayb bilaash oo ay tijaabiso laakiin isla markiiba Ray ayaa soo noqday wuxuuna ku yiri Noh ka fogo walaashay laakiin Noh ayaa si fudud dagaalka ugu garaacay gaariga dushiisa ayuu ku dhuftay kadibna mindi ayuu la soo baxay isagoo isku sheegay inuu yahay nin alla soo diray kadib wuxuu ku yiri Chris haddii aad wax u baahato weligaa waan imaan doonaa mar kasta intaas markii uu yiri ayuu iska tegay isla markii Noh baxay Ray wuxuu u sheegay Chris in ninkan uu daroogo ka iibiyo carruurta yimaada kaniisadda sanado ka hor cunug ayaa u dhintay daroogo xadaaf oo qaatay darteed fiidkii Kevin wuxuu ogaaday in firimbiga uu ka maqan yahay sanduuqa dhexdiisa wuxuu ka raadiyay meel walba laakiin uu waayay kadib wuxuu maqlay cod wuxuuna u maleeyay inuu yahay ninka nadaafadda laakiin markii uu bannaanka u baxay wuxuu arkay wax la yaab leh oo mugdiga ku dhex jira si lama filaana Kevin wuxuu dareemay gacan saaran garabkiisa uuna cabsaday laakiin wuxuu dhab ahaantii ahaa ninka nadaafadda isla waqtigaas muuqaalkii la yaabka lahaa uu lumay sidaa darteed Kevin wuxuu u maleeyay inay ahayd dhalanteed wuxuuna ku noqday fasalka dhexdiisa wuxuuna dareemay inuu arki karo neeftiisa kadib markii uu soo jeestayna wuxuu arkay shay cabsi badan oo afkiisa dhiig ka soo burqanayo ninkan cabsida badan ayaa Kevin laabtiisa gacan ku qabtay wuxuuna cadaadiyay sanbabadiisa ilaa uu ka dhintay isla markiiba ninkii nadaafadda ayaa isna soo maray albaabka agtiisa laakiin isagu waxba muusan arkin daqiiqada gudahood Kevin wuxuu isku bedelay qaab shaydaan oo kale wuxuuna ku dhacay dhulka guriga Chris waxaa lagu ogaaday inuu Kevin xaday firimbigii markaas ayay Chris diiday inay la hadasho iyaga waxayna tiri waana sanayaa iska baashaala idinku laakiin way iscalin kari weyday oo soo eegtay alle oo waqtigaas qaadanaysay irbadeedii macaanka walaalka Chris ee Timmy ayaa isku dayay inuu soo fiiriyo xaaladooda laakiin waxay ku dirireen qolkiisa markii ay Chris u sheegtay inay ugu dambeyn tagayso alle ayaa isku dayday inay ku qanciso inay joogto isla waqtigaas Den ayaa Chris ku xojeeyay inay afufto firimbiga isla markii ay afuftana dadkii oo dhan ayaa dhagaha isqabtay sababtoo ah cod aad u xanuun badan ayaa dhowr libdhaqsi dhawaaqayay markii ay waxaas oo dhan dhammaadeen Den wuxuu bilaabay inuu qof walba ku yiraahdo aamusa sababtoo ah wuxuu maqlay wax kale laakiin isla markii ay kuwa kale si taxadar leh u dhageysteen Den ayaa cod sameeyay si uu u baqdin geliyo kadib Chris ayaa iskaga tagtay meesha alle ayaana ka daba carartay si ay ugu casuunto bandhiga goosashada waxayna ku tiri Chris inaad ka soo qayb gasho aad baan u jeclaan lahaa markii ay Chris aqbashay alle way iska tagtay kadib Chris ayaa Ray weydiisay in alle ay jeceshahay wiilasha iyo in kale laakiin Ray wax jawaab uma uusan hayn su'aashaas markii ay guriga tagtay Chris waxay rabtay inay fariin u dirto alle laakiin maxay samaysaa maysan fahmin fikradaheedii midna ula maysan muuqan mid wanaagsan laakiin si lama filaan ayay u aragtay qof taagan geedka daaqadeeda wayna cabsatay laakiin markaas furitaankii qolka ay Ray ayay ka naxday kadib markii ay eegtay mar kale dhanka geedka ma jirin cid joogta isla waqtigaas teleefankeeda waxaa soo wacay alle markii ay taas aragtay Chris way naxday maxaa yeelay si kaftan iyo khalad ayay fariin shukaansiga ugu dirtay alle laakiin alle way ka heshay fariintii markaas ayuu Ray qabtay teleefankii isagoo bilaabay inuu caawiyo walaashii si uu fariimo jacayl ugu diro alle dhanka kale markii uu Den isna tegay Grace waxay bilowday inay ka shaqeyso homework-geedii laakiin waxay bilowday inay si joogta u maqasho sidii qof magaceeda ku goonaasaya waxayna u malaysay inuu Timmy ku ciyaarayo laakiin markii ay aragtay leerka qolka walaalkeed oo dansan waxay fahantay in codadkan uusan samaynayn Timmy kadib si lama filaana makhluuq cabsi badan ayaa gadaasheeda ka cararay waxayna mar kale maqashay qof magaceeda ku goonaasaya hadda waxay bilowday inay daba gasho codadkii waxayna ka hubisay miiska gadaashiisa laakiin maysan jirin wax halkaas yaalay isla waqtigaas gacan cabsi badan ayaa taabatay markii ay soo jeesatayna wuxuu noqday Timmy oo halkaas taagan Grace waxay istirtay inuu fog yahay ee sidee buu ku taaban karaa subaxdii xigtay maamulihii ayaa dhammaan ardayda isugu yeedhay kulan wuxuuna u sheegay geerida Kevin sababta geerida Kevin waxaa lagu sheegay kansarka sanbabada kadib alle waxay aragtay gabadh horteeda taagan oo geeriraysa si lama filaana qoorteedu way jabtay kadib gabadhii ayaa madaxeeda soo jeedisay iyadoo muujinaysa weji cabsi badan iyadoona sidoo kale ku goonaasaysa magaca alle waqtigaas Grace ayaa firimbiga siisay Chris alleena waxay ka baxday dhalanteedkii hadda gabadhii cabsida badneed way tagtay fasalka kadib alle iyo Chris waxay aadeen gurigii Mason sababtoo ah waxay u maleeyeen in malaha qoyska Mason ay u baahan doonaan firimbigiisa albaabka ayay garaaceen laakiin wuxuu horeyba u ahaa mid furan gabdhuhu way galeen iyagoo dhageysanaya muusig duuga waxayna bilaabeen inay eegaan waxyaalaha qadiimiga iyo kuwa qaaliga ee lagu hayo guriga si lama filaana Mason iyadii Evie ayaa gadaashooda ka timi iyadoo aan hay odhan ayayna bilowday inay ku xanaaqdo waxay aaminsaneed inay adduunka oo dhan ku soo safarto si ay u hesho waxyaalo qadiimiya waxay bartay xadaarado kala duwan iyo sida dadku ay heshiis ula galeen geerida miiska dushiisa waxaa yaalay dhalooyin daweyn oo aad u badan markii ay Chris isku dayday inay siiso firimbiga iyadoo le waxaan ka dhaxlay armaajada Mason laakiin Evie ayaa tiri hadda adiga le sababtoo ah waad heshay sida aniga iyo Mason aan mar u helnay sanado badan ka hor waxaa firimbigan ka helnay wada ciriiriya oo ku taala Guatemala ilaa hadda firimbigan habaaran wuxuu dilay gabadhaydii ninkeedii iyo hadda wiilkii aan iyada u ahaa calaamada ku qoran macnaheeda saxda ah waa inaad u yeedhato geerida marka uu qof dhasho geeridiisuna way la dhalataa laakiin waxay ku timaadaa waqtigeeda laakiinse haddii uu qof maqlo firimbigan geeridiisu waxay u timaadaa si ka dhaqso badan qofna ma noolaado waqti dheer intaa kadib Evie waxay u celisay firimbigii Chris oo ku tiri maba aysan ahayn inaad qaadato kadib fiidkii gabadhu waxay taagneed qolka isdiiwaangelinta ee isbitaalka
isbitaalka. Alle waxay aaminsaneed in geerida Mason ay ahayd mid la yaab leh sababtoo ah uu gubtay isagoo qubaysanaya, balse dhacdadan waxaa lagu diiwaan geliyay gaas dartii. Markii ay hubiyeen faylkiisa, waxay ogaadeen in lagu aqoonsaday oo kaliya ilkihiisa, maxaa yeelay jirkiisu aad buu u gubtay. Isla waqtigaas qof ayaa soo galay qolka, gabdhuhuna waxay ku dhunteen armaajooyinka gadaashooda. Warbixinadii Mason ayaa dhacay, Chris ayaana mid ka mid ah qaadatay, waxayna akhrisay in marka la eego qaab dhismeedka lafaha jirkiisa uu ahaa inta u dhaxaysa 45 sano ilaa 50 jir. Tani waxay caddaysay in sheekadii Evie ay run ahayd. Waxay la macno tahay in dhimashada Mason lagu waday inay dhacdo da'da 48 sano, isagoona u dhiman lahaa gaas dartii. Kevin wuxuu gadaal ka qaadi lahaa kansar. Hadda waxay ahayd in gabdhuhu ay kuwa kale u sheegaan arrintan, sidaa darteed hoos ayay u dhuunteen ka hor intaanu shaqaaluhu eegin waraaqaha kale. Bandhiga goosashada, qof kasta wuxuu xidhay dharkoodii caadada u ahaa. Markaas ayuu raadiyay Grace, wuxuuna ugu dambeyn u sheegay inuu jecel yahay, laakiin Grace ayaa si naxariis leh u diiday, iyadoona ka dhunkatay dhabanka, kadibna u tagtay saaxiibkeed. Den ayaa bilaabay inuu ku jeejeeso labiska Ray. Mucaashiqiin miskiinka ahaana qalbiga ayaa ka jabay, wuxuuna bilaabay inuu cabo khamri. Markay Ale iyo Chris meesha yimaadeen, Noah ayaa isku dayay inuu dhibo, wuxuuna bilaabay inuu ugu yeedho magacyo la yaab leh, laakiin Ale ayaa laad xooggan kaga dhufatay meel aan sheegi karin. Taas beddelkeedana Noah wuxuu la soo baxay mindi, laakiin Chris ayaa lugta saartay gacantiisa, waxayna ka daftay mindidii. Kadib Chris ayaa mindidii saartay sankiisa, waxayna bilowday inay sheegto wixii ku dhacay cunugii daroogada xadaafka ahaa u dhintay, laakiin Noah wuxuu yidhi ma garanayo. Markii ay taas maqashay, Chris ayaa dhaawac gaadhsiisay sankiisa, kadibna iska turtay mindidii. Isla waqtigaas Den iyo Grace ayaa ku kala lumay waddo isku qasan, halka dad dhar la yaab la xidhan ay ka cabsiinayeen. Den wuxuu helay spin ka samaysan alwaax, wuuna wareejiyey. Natiijadii ka soo baxday waxay ahayd adigaa go'aamiyey ayahaaga. Isla markaas Grace ayaa aad u la yaabtay marinada dhismahan, waxay aragtay haweeney duqa oo iftiin la yaab leh ku dhex jirta. Markii ay haweeneydii duqda ahayd ugu yeedhay magaceeda, Grace cabsi darteed ayay goobta uga carartay, laakiin mar kale ayay la kulantay isla haweeneydii duqda ahayd. Grace isla markiiba way carartay, waxayna wacday taleefanka Den si uu u caawiyo, laakiin Den wuxuu u qaatay in qof dhar soo xirtay uu ka cabsiinayo. Si lama filaan ah haweeneydii duqda ahayd ayaa ka naxisay Grace, oona dhulka ku riday, taasoo keentay in taleefankeedii ka dhaco. Grace ayaa qaadatay majarafad, markaas ayay haweeneydii duqda ahayd gacanteeda kor u qaaday oo tilmaamtay xaggeeda dambe. Markii ay Grace eegtay gadaasheeda, isla haweeneydii ayaa taagnayd, kadibna iyadoo qaylinaysa ayay weerartay haweeneydii. Labadoodina dhulka ayay ku dhaceen. Markii ay Grace soo miirsatay, waxay aragtay dhaawac madaxa kaga yaala oo dhiig ka da'ayo, waxayna fahamtay in iyaduna qabtay saldhaawacii majarafadii ee haweeneyda duqda. Markaas ayay haweeneydii dhoola cadaysay, jidhkeedii ayayna leexleexsay oo istaagtay, waxayna bilowday inay eryato Grace. Grace waxay orday intii ay waddo sida ugu dhaqsiyaha badan. Dhanka kale Den wuxuu isna bilaabay inuu walaaco, sababtoo ah Grace taleefanka ugamaysan jawaabayn. Kadib Den wuxuu bilaabay inuu goobta ka raadiyo. Grace aad bay u sii naxday markii ay ku xanibatay waddo xidhan, laakiin nasiib wanaag waxay gidaarka ka dhex heshay god qarsoon, waxayna gashay iyadoo gurguranaysa. Laakiin haweeneydii duqda ahayd ayaa goordhow ka daba timi, waxayna qabatay lugta Grace, iyadoo faraheeda cabsida badan gelisay lugteeda. Kadib gacanteeda ayay gelisay dhuunta Grace, taasoo sababtay in jirkeedu isbedelo. Grace ayaana iska sii daysay, waxayna sii wadatay socodka ilaa ay ka gaadhay bartamaha dhismaha xujooyinka. Laakiin nasiib darro haweeneydii duqda ahayd ayaa ka soo muuqatay tiirarka iftiinka si ay u beddesho Grace. Haweeneydii duqda ahayd ayaa dhunkatay, laakiin markii Den uu meesha soo gaadhay, Grace waxay noqotay qof aad u duqoobay oo wada laalaaba. Waqti dambe, gudaha goobta jimicsiga iskuulka, Den wuxuu diiday inuu aqbalo in jirkaasi uu ahaa Grace. Markaas ayay gabdhuhu u sheegeen waxa ay tiri Evie. Labadooduba waxay aaminsan yihiin inay dareemayaan geerida oo soo dhowaanaysa. Den weli arrintan muusan aaminsanayn. Markaas ayaa Ray xasuusiyey inuu isagu ku xajiyey Grace inay afuufto firimbiga, sidaa darteed sababta dhimashadeeda adiga iska leh. Den ayaa riixay, wuxuuna sidoo kale ku jeesjeesay xaqiiqada inuu Grace jeclaa Ray. Sababtaas awgeed Ray wuu murugooday oo meesha ka cararay. In yar kadib Den oo sarqaansan ayaa qolkiisa ka galay daaqadda. Markii uu muraayadda eegay, wuxuu arkay in jirkiisa ay ku yaalaan nabaro aad u xun. Wuu argagaxay, wuxuuna u laabtay dib, wuxuuna si khalad u jabiyey laambad qolka taalay. Kadib wuxuu u orday inuu shido nalka weyn, laakiin intaas ka hor ninkii waa la waayey. Markaas ayaa waalidka Den garaaceen albaabka iyagoo weydiinaya codkani waxa uu ahaa. Den wuxuu uga jawaabay inuu riyo uun arkay. Markaas ayaa aabihii oo xanaaqsan canaantay, sababtoo ah isagoo cabsanayo baabuur waday, wuxuuna ku yidhi maalin uun dhaqankaaga xun ayaa ku dili doona. Intii ay arrimahan socdeen, guriga Chris waxay u sheegtay alle in sanado ka hor ay qaadatay daroogo xad dhaaf ah. Aabaheed ayaa si dhaqso ah ugu waday isbitaalka baabuurkiisa, laakiin jidka dhexdiisa ayay shir ku galeen gaari xamuula, isla goobtiina uu ku geeriyooday. Mararka qaarna waxaan is idhaahdaa haddii aan anigu dhiman lahaa beddelka aabahay way fiicnaan lahayd. Dhanka kale saqafka sare, Ray oo roob ka fadhiya ayaa bilaabay inuu ka fikiro Grace. Si lama filaan ayuu dhiig ku arkay gacmihiisa iyo bambalidiisa ciyaalka, kadibna wuxuu arkay isagoo gudaha u galayay mashiin burburiyay jidhka bini'aadamka. Laakiin waxaasoo dhan keliya maskaxdiisa ayay ka dhacayeen. Maalintii xigtay, Ray iyo gabdhuhu waxay aadeen inay booqdaan Evie, taasoo sariirta ku xanuunsanayd. Waxay u sheegtay in haddii dhibaatadan la joojinayo, ay khasab tahay inay geeridooda u wareejiyaan qof kale, iyadoo dhiigooda ay ku
calaamadeeyeen qofkaas markii ay Grace eegtay muraayadda waxay aragtay geerideeda oo taagan gadaasheeda iyadoo hub sidoo kale gacanta ku haysata isla markii ay luntayna Evie ayaa sirta ku dhimatay kadib saddexdooduba waxay bilaabeen inay ka fakaraan waxa ay samayn karaan sidaan aniguba uga fakarayo inaan ku xasuusiyo inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay sababtoo ah waxaan saaranahay wadadii aan ku gaari lahayn 20,000 oo subscribe adiga oo kaliya ayaana naga maqan haddii aynu ku soo noqono muuqaalkeena Ray wuxuu rabaa inuu geeridiisa u sii gudbiyo qof kale laakiin alle aragtideeda arrintani waxay ahayd dil wayna ka soo horjeesatay qorshahaas waxay bilaabeen inay isku qabtaan arrintan Ray kaligiis ayuuna iskaga tegay meesha guriga dhexdiisa Dane ayaa arkay warka dhimashada Grace wuxuuna damiyay TV-ga marnaba muusan rumaysan xaqiiqada inay dhimatay Grace markaas si lama filaanaya albaabka qolkiisa si xoog u furmay waxaana qolka soo fiirisay gacan cabsi badan Dane ayaa kursi ku tooray albaabka taasoo keentay in waalidkiis ay iyaguna yimaadaan meesha Dane ayaa degdeg u xiray albaabka si uusan gudaha u soo gelin kadib si lama filaana alaabtii qolka taaleeyay iskood u dhaqaaqay waxaana dib u soo laabatay geeridii Dane oo madaxiisa qabatay hadda jirkiisa wuxuu bilaabay inuu geeriro sidii shil baabuur dhammaan nabaradii ayaa si tartiib uga muuqday jirkiisa lafihiisa ayaa jabay xubnaha jirkiisuna waxay joojiyeen shaqadii intii waalidkiis ay ku soo dhawaanayeen inay jabiyaan albaabka Dane wuxuu noqday meel dhulka yaala isla waqtigaas Chris iyo Ale ayaa u yimid inay Ray qolkiisa ka raadiyaan laakiin halkaas muusan joogin waxay halkaas ka heleen sawiradiisa isagoo ka shaqaynaya warshada biraha iyo buug majaajila oo muujinaya geesi dilaya nin xun taasoo laga yaabo inay tilmaam u ahayd arrintan kaniisadda dhexdeeda Ray wuxuu arkay Noh oo sagootinaya carruurta markii dadkii oo dhan tageen Ray ayaa gudaha u galay kaniisadda isagoo gacanta ku haya qori ugu horreyn wuxuu toogtay weelka ubaxa si uu Noh ugu muujiyay inuusan kaftamay markaas ayaa si lama filaan gambalelkii kaniisadda u yeedhay oo dareenkiisa la weeciyey isla markaas Noh ayaa ku soo booday waxaana dagaal ka dhex bilowday labadooda Ray wuxuu ku dhacay dhulka Noh ayaana qorigiisii ku dhigay gacanta laakiin markii uu isku dayay inuu rido xabadda qorigii uu shaqayn waayey markii uu taas arkay Ray ayaa si xaweyn ku dhuftay Noh si uu u meerbeeliyo mar dambe markii uu Noh miirsaday wuxuu arkay isaga oo xidhan weliba dhex jooga warshada biraha intaa kadib Ray ayaa jeebkiisa kala soo baxay daroogo wuxuuna ku qasbay Noh inuu liqo kadib Ray wuxuu gacantiisa iskaga soo saaray in yaroo dhiiga gacantiisa kalena wuxuu kala soo baxay firimbigii taasoo dareen gariira ku abuurtay markii Ray uu rabay inuu calaamad dhiiga mariyo Noh ayay gabdhuhu soo galeen si ay u joojiyaan laakiin wuxuu ku fiiqay qorigii isagoo ku yiri dib u laabta Noh wuxuu bilaabay inuu baryootamo gabdhuhuna waxay bilaabeen inay yiraahdaan ha samayn sidaas kadib markii uu intaas maqlay Ray wuxuu bilaabay inuu dib u laabto gacantiisa kadib Ray wuxuu yiri qof kasta mar ayuu dhiman doonaa markii ay arrintan maqashay Chris ayaa fikrad ku dhalatay isla waqtigaas Ray wuxuu maqlay magaciisa awood aan la garanayn ayaana jiidatay gacantiisii dhaawacnay baskoladii ayaa gacantiisa ka dhacday gabdhuhuna way qabteen iyagoo isku dayay inay badbaadiyaan laakiin hadda waa goor dambe jirkiisu wuxuu bilaabay inuu gogo'o sidii inuu mishiin jarjarayo markii jirkiisa barkii hadhay kaliya hilibkiisa ayaa hawada isku shareeray markii uu taas arkay Noh naxdin darteed ayuu u suuxay markii ay aragtay dhimashada foosha xun ee walaalkii Chris aad bay u cabsatay waxaana qasab noqotay inay alle dejiso waxay xasuusisay in fikrad ay ku soo dhacday ee maxay ahayd hadda gabdhuhu waxay dhaqso ugu ordeen baabuurkii alle waxayna gaadheen isbitaalka markaas ayay Chris bilowday inay sharaxdo qorshaheeda iyadoo isticmaalaysa dawada insulinta oo joojisa sonkorta dhiigga kadibna mudus kale waxaa midkiinba midka kale dib ugu soo nooleyn karnaa tani waxay la macno noqon doontaa dhimasho oo kale laakiin laga yaabo habkan inuu geerideena naga fogeeyo labadooduba dhammaan qalabkii waxay keeneen gudaha dhismaha halka Chris ay ku aragtay geerideeda oo sugaysa iyagoo isticmaalaya qalabkii warshada gabdhuhu waxay sameeyeen dhammaan diyaar garowgii sidoo kalena waxay xidhan albaabka Chris waxay markii hore rabtay inay badbaadiso Ali laakiin Ali ayaa ka naxsay iyadoo irbadda insulinka ku muday gacanteeda markaas ayay fahamtay in geerideedu ay tusayso daqiiqadan jidhka Chris wuxuu ku dhacay baaldi biyo oo aad u qabow Ali ayaana halkaas ku haysay ilaa uu wadnaheedu ka istaagay markii ay dhimanaysay Chris ayaa qoyskeeda qalbiga ka weydiisatay cafis kadib Ali waxay soo bixisay Chris waxayna ku muday irbad waxayna bilowday inay isticmaasho koronto si ay wadnaheeda u soo kiciso Chris ku dhawaad way soo miisatay laakiin geerideeda ayaa qabsatay maskaxdeeda waxayna doonaysay inay ku hayso iyadoo dhimatay iyadoo lagu khasbay alle waxay bilowday inay u samayso CPR laakiin geeridii ayaa si adag u qabatay isla waqtigaas Noh ayaa miirsaday wuxuuna awooday inuu iska furo kursiga ku xidhnaa kadib markii uu baaskoladii soo qaatay wuxuu bilaabay inuu albaabka dubbo ku jabiyo isla waqtigaas geeridii alle ayaa sidoo kale timid geerideedu waxay u timid qaabkii isla gabadhii ay ku aragtay kulankii iskuulka dhanka kale Noh wuxuu dalool u sameeyay albaabka wuxuuna gacantiisa geliyay gudaha isagoo bilaabay inuu rasaas rido wuxuu burburiyay mashiinkii korontada bixinayay waxaasoo dhan alle way ku dhaawacantay laakiin wuxuu ka hor istaagi kari waayay alle inay ku celceliso magaca Chris taasoo Chris siisay xoog aad u badan ugu dambeyntii waxay awood u yeelatay inay iska riixdo geerida Chris way soo toostay waxayna aragtay alle oo dhulka ku dhibaatoonaysa geerideedii ayaana ku eegaysa weji qura isla waqtigaas Noh ayaa gudaha soo galay wuxuuna bilaabay inuu yiraahdo Ilaahay wuxuu qof kasta u abuuray shaqo gaara wuxuu taabtay dhiiggii alle taasoo sababtay in geerideedii ay meesha ka baxdo oo geeridii Noh ay horteeda timaado wuxuu riday rasaas laakiin xabad kasta waxay dhibaato u geysanaysay jirkiisa
wuu dhacay geeridiisana durba way dishay hadda Chris ayaa laabta gelisay Allee kadib indhahooda waxaa ku dhacay firimbigii jabay oo ay suurtagal tahay inay xabaduhu jabiyeen muuqaalkeena maantana halkaas ayuu ku eegyahay haddii uu kacjabiyey muuqaalku waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto channelkana aad subscribe tiraahdo oo aad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay waxayna ku kulmi doonaa muuqaalkan xiga